madaxweynihii labaad ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal Walaashi Faadumo Maxamed Cigaal Qaasaali oo degan magaalada Burco ayaa cabasho ka muujisay guri uu lahaa walaalkeed Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal oo ay deganeed muddo 30 sanadood isla markaasina ay sheegtay inay ka gashay hanti badani ayaa warbaahinta u sheegtay in si sharci darro ah looga saaray gurigaasi kadib markii ay sheegtay in laga iibiyay mid kamid ah ganacsatada gobolka Togdheer isla markaasina alaabtii gurigaasi taalay loogu daadiyay meel banaanka ah muusan la hadlay muuse wuu yaqaan Faadumo Maxamed Cigaal tawfiiq baa ururkayga leeyahay waa 12 meelo waa lay foodeeyay waxay foodeeyay ayadoon warqad laysiinin oo aan dawladii la wargelinin oo ciidan guriga 18 May oo inankii ina Cigaal dhalay iga aantay intaan aniga uu yiri iga iib aan ka iibsaday uu yiri qolo kale ilmaadeerada yaan ka iibiyay baa la igu foodeeyay dabadeedna gurigan la igu foodeeyay 30 sanadood buuraa baan ku jiray ina Cigaal baa yiri dhiso inankiisii baa yiri eedayadan ka iibinay dabadeedna markii aan lacagtii aan u keenay aan u soo dhignay 100 yaala wari sidaan u sugaynin buu yiri adeerkay baan ka iibiyay eeda lacagtaada qaado nin kale ka iibin hadalkii aanu Ali Maxamed isku hayno Maxamed Ibraahin Cigaal aanu isku hayno xalin ninka la yiraahdo ayaa dabadeedna askartaas uu dhex galay nin go'an la yiraahdo igu soo foodeeyay waxa la wixii guriga waxa weeyaan guriga 22 meelood may waa 20 baan ka dhisay muuse bixiyow xagga sare waxa yiraahdaan qiimeeyaa gelin waxeeda uu qiimeeyaa duu Ali u diiday guri gooniya baa jira oo niman iska dhisteen oo 10 sanadood lagu dagaalamayay oo dhisan oo ka isagu male ana ale buu yiri malaha wanaqano nin walo madaxiiba oran jiray asbaarada inoo soo sheeg ina Cigaal oran jiray ninkii asbaarada ayaba aniga ii soo sheeg warii kaalay ku dhe ana iyay ka goda iigu yeedh walaal iigu yeedh ayaa la jiiday oo la igu tuuray 30 sanadood ku jiray baa la igu tuuray stationka markii la igu tuurayna qofkii salaadii weey qofkii waliba markuu isa soo taagay Faadumo Maxamed Cigaal yahay may waxa ogolaanshahay keena baan ilaahay jiidine wixii la igu soo xidhay keena ciidahay dabadna waa la yaftubo waa la tuuro cid la yima weydiin markii la tuurayna dadkayga dhamaadayna afar geeska kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar kamid ah caruurteeda iyo sidoo kale qaar kamid ah qoyskeeda waxaana hadaladoodii kamid ahaa soo qabtay aniga oo suuqa iska maraya markaas islaanta soo la xiray aniga iyo wixii islaanta loo maleeyay caylad leeyihiinba hantidii qoryaha la igu qabtay ninka galay si cadaalad darro oo fooxsho ayuu ii xiray si la isku dili jiray gacmaha wuxuu iga qabtay katiinad xabad ba halka iga saaray si qolaab uu hadlo wuxuu reerkayga ayaa loo qoraal qaat qorina ma qaadan 30 sanadood kuma haysato walaalkeedii dhintay oo dawaceeb haday walaalkeed oo dhintay ku haysato laakiin markii hore walaalkeed baa dhis oo dhisa oo hagaajiso markii ay dhisatayna inamaday dhaleen ayaa yiri waan iibinayna gurigii waxa jira hadii la iibinayo guriga ana iibsanaya oo gurigii walaalkay u yahay ana gacanta ku hayay budinka ana mas'uul ka ahaa way diideen waxay dhaheen kaaba iibin meen ee dad kale aan ka iibinayna waxa jiri waayaha cid doontaan ka iibiyo hadaa diideen oo aad saas ku afkarateen hantidii iga dhastay guriga ana bilaabay oo dhiso ilaa dhakada sare dhisay qarashkiiga galay siiya waayay bay dhahan marka guri kale oo dhinacan ka xiga oo inankeedu leeyay oo ma garanaysaa ay leeday kaana waxa leeyay muran baa ku jira laakiin waxa ka hadli doona odayaal badan oo kale iga dambeyn doona labada qodob waxa weeye midna waxa weeye guriga islaanta la galimaadka lagu sameeyay iyadoo aan wax ogeysiina cidna loo sheegin ehliyadeedina loo sheegin iyadana loo keenin galimaadka lagu sameeyay aqalkeedii iyadana la xidhay aqalkeedina la guray halka lagu soo daadiyay weeyaan taasi waa sharci darro baan anigu leeyahay horta marka ugu horeysa ciddii arrinka fulisayna iyada ka mas'uul waxay hantidii halka taala wixii ka maqan qodobka labaad waxa weeye guriga Xaaji Maxamed Ibraahin Cigaal cid kuma haysto Faadumo kuma haysto cid kale kuma haysto yaga leh hanti baa ka gashay Faadumo waxa weeye hantideedii gashay ku dhistay qiimeyn in loo sameeyo oo loo celiyo aan la dulmin ayaa haboon Maxamed Saciid Gaxnug telefishinka caalamiga badda cas 24 TV Burco.